ganacsadaha wanaagsani ama xariifka ahi waxa la yiraahdaa waa ka dadka ka iibiya waxay aanay u baahnaynba in caano dhay ah la iibiyo lagana ilaaliyo isbedel masahlana cabdiqaadir maxamed salaad waxa uu muqdisho ka furay mid kamid ah ganacsiyadii ugu horeeyay ee warshadeeya waxyaabaha caanaha laga farsameeyo cismaan cabdi xasan ayaa warbixintan inoo haya waa shirkad warshadaysa caanaha waxaana furay cabdulqaadir maxamed salaad oo Soomaaliya ka tagay 1991kii wuxuu ku noolaa UK isagoo ka shaqayn jiray caanaha iyo waxyaabaha laga sameeyo in ka badan 25 sano kadib ayuu dalka kula laabtay khibrad cabdulqaadir wuxuu shirkadiisa ka furay magaalada Muqdisho caqabadaha ugu waaweyn ee jira waa qaraxyada ay geystaan ururka al-shabaab waxyaabaha ugu waaweyn hadda caqabada ku ah waxa kamid ah amniga darrada jirta baawurka caanaha sida maanta waxa laga yaabaa production soo saarnay markuu magaalada Dabcan uu aado inuu caanaha qaybin waayo sabab la xiriira fayadhowrka caanaha xilliyadii hore waxay in badan oo dadka kamid ah aaminsan yihiin in caanaha lo'da ay khatar ku yihiin caafimaadkooda iyagoo ka doorbida caanaha geela ama caanaha booraha ee dibadda laga keeno cabdulqaadir wuxuu rajaynayaa in tayada caanihiisa ay ku dhiirigeliso dad badan in ay bedelaan qaabka ay u qaataan caanaha runtii caanaha Irmaan waa caano aad u wanaagsan badanaa hadda macaamiishana aad u fahmeen inay isticmaalaan waana caano markii aad dalbatid on time lagu keeno dadka kula macaamilaan ay yihiin company dad u hoolan inay bulshada u shaqeeyaan kuwani waa qaar ka mid ah lo'da caanaha shirkadda Irmaan waxayna u muuqataa in ay wax ka bedelayso ganacsiga waxyaabaha ka yimaada xoolaha markii ugu horeysay waxaan ku bilawnay ilaa 6 neef aan ku bilawnay laakiin haddeertaan waxay maraysaa ilaa 50 iyo dhowr neef shirkadda caanaha Imraan waxa ay maalin kasta soo saartaa oo baca ay ku shubtaa 2,000 oo litir oo caano ah waxayna sidoo kale soo saaraan caano ciir ah iyo burcad hal-abuurka ganacsigan ka dambeeya waxay diyaar u yihiin in ay dhiirigeliyaan wax soo saarka gudaha tani waxaa laga yaabaa inay tahay tii ugu horeysay Soomaaliya ee warshadaysa caanaha balse sida fahamka dadka isu bedelayo waxaa laga yaabaa in aysan noqon tii ugu dambeysay